saaxiib maan nahayn odaygaani weligiina maana saaxiibin marxaladahan aan isla soo marnayna kulligu duruufta yaa isu kaana keentay isla kaana soo marinaysay maahane one day iguma qancin xasan sheekh intii markaan iri waxaa moodaa inuu qiyaamihii dhaqaaqay arrinta cirka isku shareertay saa u dhihi karta waa dhahaan dhahay soo xor miih adi waxaan dhahay madaxweyne xabsi maan kugu jirna annaga sideeda kale waxaan kuu sheegaan dhahay sideedaba wixii aad ku sii wada joogteen waqtigu markuu idinka dhammaaday ee waxyaalihii uu idinku celin jiray siciid waa kii tegey mudduu axmed adkaystay kadib uu isna cararay idinku waad sii joogteen dastuurka siduu idinka dhaadhiciyey iyo xisbiga markii uu yiri hala galo bal arrintaa iyadana soomaali sidii imka aad noogu sheekayso kale taliyihii ciidanka asluubta ahaa oo habeen imaanin dowladnimada ka shaqaynaya in madax furasho loo haysto oo bistoolad madax laga saaro uuna madaxweynihii ka saaro ninka saas dhahay inuu madaxweyne yahay madaxweyne xasan waxaad ahaydeen laba qof oo isku dhow xisbigiisa aad gudoomiye ku-xigeen uga ahayd asaga oo gudoomiye ah xamar baad martay turki baad u dhooftay maxay ahayday magaalada markaa tagtay cumraad aaday xaaladiinu caadi bay ahayd goormay kala fogaanshaa intaas leeg idinku dhacay hebel iigu yeer hebelan kugu soo diraa intaan yeelaa 3 shay handadaad maslaxo calaacal intaasaa lisugu kaa daraa waa yaabaysaa waxaa leedahay war waxaan adi hadda waxaad noo sheegtay inaad xilkii ka tegin ood weli madaxweynaha koonfur galbeed tahay 15 May haddii la gaaro maxaad u taqaanaa asaga qofka markii la reebay waa inuu bannaanka joogo moogtahay jaa already waaba sii fariistaan dhahay codkina waa la bilaabay saas miyaa uu yiri bow waa booday waa cararay isaga yaa waxaa yidhi ninka aan kaa reebayo meeshuu fadhiyaabo marka waaba dhihi lahaaye bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada wada sheekaysi kale iyo geed fadhi oo uu maanta marti noogu yahay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen barnaamijkan waxaa si toos uga daawanaysaan cartalk iyo Somali Stream waxaana si wada jir idinkugu soo gudbinaya anigoo cabdinuur maxamed axmed iyo anigoo cabdikariim cali kar cabdicasiis xasan maxamed marka aanu madaxda waraysanayno kii xil hayana xilkiisaan ugu yeerna kii xil soo hayn jirana xilkii uu hayn jirayna isna ugu yeerna adiga maxaan kugu yeernaa bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsantihiin cabdikariim iyo cabdinuur aniga sida aad la socotaan waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed ee sharciga ah laguna doortay si sharci ahna loo doortay dastuurka kumeel gaarka ah ee federaalka sharciyada uu ka qabo nidaamka federaalka iyo dastuurka koonfur galbeed lagu doortay 8 waxaan markii hore u ahaa madaxweyne waxaana 28 Maaj la ii doortay mar labaad madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed oo sharciga ah oo dooran marka waxay igu yeeraysaan mudane madaxweyne aad baad mahadsantahay marka haddaad madaxweynihii koonfur galbeed tahay hore u ahayd oo lagu ogaa markii dambena sidaad sheegtay 28 bisha 3 Maarso mar labaad lagu doortay maxaad baydhabo uga sootay cabdikariinow aad baa u mahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirto baydhabo waxaan uga soo tegey waa la socotaa oo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka dhan waa ogyihiin waxaa muddo 2 bilood ahba nagu socday duulaan qaawan oo dowladda federaalka ay nagu soo qaaday oo dhaqaale leh oo cunaqabatayn leh oo dabaabaad leh oo diyaarado leh oo naloo adeegsanayay resourcekii iyo awooddii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada lahayd naloo adeegsanayay yaa nagula soo qaaday wuxuu soo socdo muddo 2 bilood kadib culayskii wuxuu soo gaaray caasimadda ku meel gaarka ahayd sidaas darteeda maadaama duulaankaas sharci darrada ah oo inqilaabka ah nagula soo qaaday yaa waxay noqotay duruufta inaan inta imaado anigana aan qorshahayga iyo tabaabushaysigayga aan dib ugu noqdo deegaanadii la ii doortay laakiin sharciyan
madaxweyne dooran la doortay haddana madaxweynihii koonfur galbeed ah baan ahay. ciidan ilaa 5,000 ka badan hubaysan muddo 7 sano aad carbinaysay daraawiish iyo police iyo military iyo wax walba isugu jira ayaad haysatay. ciidanka kugu soo duulayna waxay kasoo dhaqaaqeen xamar buuraha kaba diyaarada lagu keenay qaaran jidka la soo marsiiyey kadibna waxay soo dhaxmareen wadada u dhaxaysa buuraha kaba iyo Baydhabo. adigoo cudud intaas la eg haysta sidee ku dhacday inay Baydhabo gacantaada ka baxdo oo aad diyaarad uga soo baxdo? cabdinuurow horta duulaanka iyo muddadii uu soo socday tii aan sheegay waayo iyo in buur laga soo baxay. anigu waxaan ahaa 7 sano iyo 4 bilood madaxweynihii koonfur galbeed. waxaan waqti iyo xoog iyo u turitaan iyo daacadnimo ugu soo shaqeeyey shacabka reer koonfur galbeed. waxaan uga danqanayay sida aan ilmahayga uga damqanayo kale. waxaan uga damqanayay sida waalidiintay aan uga damqanayo kale. waxaan u xanaanaynayay sida ehelkayga aan u xanaanayo kale. waxaan ugu cadaalad falayay. waxaasoo dhanna waxaan ka rabay waxay ahayd sharaf iyo legacy iyo wanaag inaan dadkaas uga tago. annagoo inta ayadeed ka shaqaynayno ciidamadii huwantahaa iyo diyaaradahoodii iswato yaa waxay soo galeen magaalada Baydhabo meel aanan la ogeyn oon qorshaysnayn ay magaalada ka soo galeen. meeshii laga sugaayay annagu ciidanka annagu wuxuu joogay Burujeed meel la yidhaaho oo 10 kilomitir 12 kilomitir u jirto magaalada. mana rabin in dadka dhexdiisa lagu dagaalamo oo dagaalkaas ciidan waxay isku gaarsiiyaan maahane qof shacab ah annaga oo qadiyadaanada difaacayna inuu ku dhinto iima qorshaysnayn. sidaas darteeda markii ciidamadii diyaaraddii weyneyd oo u duqeynaysay meelaha ay soo marayaan ama sahanku ahayd yaa subaxi waagi markuu baryey waxay sawirtay ciidanka annagii koonfur galbeed oo ilaa iyo 3 raac difaac ku jiro. raaca koowaad Burujeedka meel saldhig horay u ahaydoo aan hadda ka hor shabaab kula dagaalanay waan ka bixinay oo dadka badan looga dili jiray. raaca labaad isla Burujeedka agtiisa meel ahayd. kan saddexaad waa ku xigay. kan afaraadoo ugu dambeeyey yaa wuxuu ahaa maayinfuulka. diyaaradda sahminaysay oo sawirtay yaa ciidankii qof u sawirtay waxayna u sheegtay meeshaan inaysan mari karin ciidankan hadday inta maraan hal qofna uusan Baydhabo tegayn. annagana qorshaha annaga wuxuu ahaa xitaa shacabka inaysan xabad maqlin in la dagaalamayo bas un ay ogaadaan hadday maqlaanna ayna waxba soo gaarin. qorshahaas yaa markiiba diyaaraddii yaa sawirtay way sheegtay isla markiiba jidkii ka leexdeen meel magaalada u dhow oo la yidhaaho Abu Casharow ay ka soo galeen. markay soo galeen saraakiisha ciidamadii waa ay report gareeyeen waxay yidhaaheen intaasay noo jirtaa. waxaan ku iri haddii ay magaalada soo galeen oo Abu Casharowba ciidankii uu joogo xabaddi baan maqalnay waxaan qabaa ciidamada dib ha uga baxeen yaynan dagaal gelin. saraakiisha ilaa waa dagaalamaynaa yidhaaheen ma la dagaalamayaan dhah. sababtaan u irina waxaa weeye dadka magaalada Baydhabo jooga 1,300,000 oo qof ah ku nool magaalada Baydhabo. dhagaxi kor loo tuuro dhul ma dhacayo. qof bini aadan ku dhacayo. xabaddii la ridana weeftadana daday ku dhacaysaa. niman burcad ah oo qoladan sahan u ahayd oo awalba uu madaxweynaha meesha ku abaabulay oo looga warqabay oo mishaar lagu siinayo oo naloogu talagalay annaga in caqabadna looga dhigo yaa subax oo dagaal ka dhacay magaalada gudaheeda ay jidad xireen oo ay diideen in la isu socdo yaa waxay ahayd 5 saacadood ay socotay. 5tii saacadood xabad kastoo kor loo rido ama qof bini aadan ay ku dhacdaa ama ku ag dhacdaa. tiiban marka yaan shalay ka qabnay maanan doonayn magaalada dhexdeeda in lagu dagaalamo. sidaas darteed ciidanka saraakiishii waa ku qanci waayeen ilaa barasharan ku saaray in ciidanka la soo bixiyo nabad uu ku soo baxo ay soo galaan nimankan. haddana mar labaad waxay soo jeedeen hadduu ciidanka soo baxay annaga magaaladan soo galaynaa. Burujeedka ciidanka joogay dib baa loo soo qaaday magaaladan la keenay
gaadiidkii iyo tiknikadii magaaladii soo galeen waxay dhaheen haddana magaaladan ku dagaalamaynaa. war waxaan diidayabo waa magaalo lagu dagaalamo. annaga burcad ma nihin, dowlad baan nahay, dadkaanaan ka naxaynaa. marka dadka annagii inay micno la'aan ku dhammaadaan ma rabno. in dee la yidhaaho waagii dagaalkii baana intaasoo qof ku dhimatayna inay taariikhda ii gasho oo dhiig ugu daata ma rabo. dadkana waa dadkaygii oo waa ka naxaya. oo xasan dadkan kama naxayo. kuwii asaga ehelkiisa ahaa uu ka nixi waaye oo siinay uu ku baabi'inayo oo ku duduminayay. marka nin aanan kuu naxaynin haddii aad ku dayatid oo waxa lagu kor dagaalamayana dadkaada ay noqdaan, horta damiir xumo yaan u arkay. saas darteed baana ku amray ciidankii. isla markiiba waa soo aruursadeen magaalada qayb ka mid ah oo ciidamada xarumo u ahaayo deganaan jireen iyay degeen. waa joognay, talaan siiyey. talada aan siiyey waxay ahayd goobo cayiman oo adinka aad leedihiin dega, meeshiinaas deganaada. aan aragno ha yimaadeen magaaladii. magaaladan nin duulaan ahoo ku yimid ugub ma aha, cuseybna ma aha, weligeeda imaan jirta, si xunuuna ku tegi jiray. marka sidii bay noqonaysaaye waxbo ayadoonan cidna waxba gaarin iyayna dhaafi doonaan xarumihiina dega. sidaas darteedaan marka u soo baxay aniga oo u turaayo deegaanka iyo dadka iyo wixii aan 7 sano ka soo shaqaynayo oo horumar ahaa, iyo wixii aan ka soo shaqaynayo 7 sano oo mashaariic ahaa, iyo wixii aan 7 sano nolol ahaan soo suubiyey oo qurux ahaa, yaan ana u turaayo yaan ku soo baxay. laakiin ciidamadii iyo aan intaas dhisaynay tiradooda hadda aniga kuma sheegayo, intaas sheegtayna ma aha. ciidanka koonfur galbeed oo meel walbuu joogaa, baydhabo keliix ma aha. waana ciidamadaanadii oo weli haddaba sidii bay u shaqaynayaan. laakiin bixitaanka inaan baydhabo lagu dagaalamin ah ma ahan in ciidan la waayey, ma ahayn in la baqay, ma aha in hub la waayey. weliba waxaan aaminsanahay haddii la dagaalamo maalin ka badan ma la dagaalameen, ayagana may soo galeen baydhabo. laakiin waxaan diidayaa taariikhda maalintaas baydhabo lagu dagaalamay, qofka qaxay, kan dhaawacmay, kan dhintay inay ii gasho. intaas intaan uga soo baxay. marka madaxweyne si aan u fahmo maalinta dhacdadii dhacday, Soomaaliya oo idin meel walba ay joogto indhahay ku haysay, waana wax aad waxay ka mid tahay sababaha loo sugayay hadalkaaga. marka ciidanku ay magaalada soo galeen oo adigu aad qaadatay go'aanka ah inaan la dagaalamo, madaxtooyadu ma kula soo xiriirtay? sidaa wuxuu dhacay, bal maalintaa nooga sheekay ilaa bixitaankaaga. aad u mahadsan tahay. markii intaas ay dhacday oo ciidankii ay dhinac u baxeen, xabadana iska dhacayaan micno la'aan ah, ciidanka annagana ayna ridaynin, oy mooryaantii magaalada soo gashay ay ridayaan, buuqi isla kacayo. waa naloo soo sheegayaa. aniga madaxtooyadan jooga, saa la socotid madaxtooyada waxay saaran tahay eeraboorka. marka waa nala soo rabood garaynaya arrintii. ciidankii si deganaansho ah oo asluubaysan yaan u xallinay, waana nala qaateen. marka waxaan ku jiray aniga madaxtooyada, anoo madaxtooyada joogo ay mooryaantiina soo gashay, laisla qaylinayo, dadka taagan yihiin, dadkiina ay soo baxeen oo ayagii ay xabado iska ridaayeen, marna la sii didaayo, marna la soo didayo, laakiin cid xabad ku ridaysa aysan jirin. yaan waxaa ila jiray dad kale oo mas-uuliyiin ah oo meesha nala joogay, odayaal reer koonfur galbeed oo siyaasiyiin waaweyn ah uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal, iyo xildhibaano wasiirro hore soo ahaan jiray sida xildhibaan Sanasuur iyo aadan xildhibaan xasan cabdinuur iyo tiimkii xukuumaddayda ka tirsanaa ayaa waa isu nimid, waa shirnay. waa anaana u sheegay oo waxaan iri ma rabno inaan magaaladan ku dhex dagaalanno, magaaladanadii waaye. xasan magaaladan magaaladiisa ma aha. wuxuu arkayaa uu ka rabaa meeshan wixiisa inuu ku fushado
weydantiisa ma ahane dadaa dhintay iyo dadaa barakacay iyo dadaa qaxay iyo dadaa la dilay danka ma leh haddii uu dan ka leeyahay kuwii isaga dad u xigay buu habeen iyo maalin idaacadaha ku oynayaa yuu dayn lahaa sidaas darteeda annaga dadka annaga aan u turno waana baxaynaa waan niri waa joojinaynaa ma dagaalamayn dadkii mas-uuliyiinta waa lagu kala aragti duwanaa laakiin 90% waxay yidhahaan annagu dee adaan ugu raacnay waana ogolnahay waa diyaar baan ku nahay marka intii aan isku raacnay yaa wuxuu noqday qorshaha marka labo hadday saa tahay nimankiina meeshii ay yimaadeen annagu maxaa noo qorshaa midda kale adaa noogu muhiimsanoo madaxweynihii ma rabno mooryaantan inaad gacanteeda gashee maxaanu samaynaa laba option kee yeelnaa ma baxnaa oo ciidanka annagii ma u tagnaa maya ma baxnaa oo bannaanka ma tagnaa intii xaaladdan ay ka kala baxayso diyaarad miyaa lagu dalbaa labadaas ayaa la keenay aniga waxaan qabay aragtida ah inaan baxo ciidankii aan aadno magaalooyinkan kaloo koonfur galbeed iyo deegaanadan kaloo koonfur galbeed iyo aan tagno weliba especially deegaanka aniga shakhsiyan aan kasoo jeeday yaa magaalada 70% ku wareegsan oo saan haddaa u baxdid saan haddaa u baxdidba constituency-gaygii waaye oo xariina degan oo qabiilkaygii baa degan inkasta oo qabaa'ilka deegaanada degan oo dhan aan mas-uul u ahaa oy dadkayga ahaayeen oo mid kastoon u taga wuu igu faraxsanaa oo isoo dhaweyn lahaa haddana dee saasay u wareegsanaa jidka xamar ka yimaado ilaa iyo jidka aado baardheere inta u dhaxayso dadka deganay ahaayeen ilaa iyo inta ka baxdid baa 100 kilomitir iyo socon kartay marka aniga waxaan soo jeediyey inaan aadna meesha marka raggii waxaa la yidhi maya annagu waxaan rabnaa madaxweyne dooran oo madaxweynihii koonfur galbeed waaye waa la isku soo duulaa waa la isqabsadaa waa la kala dagaalamaa laakiin waxaan qabnaa madaxweynehu inaad adiga baxdid oo meeshan aad ka baxdid diyaarad dalbatid aad tagtid kadib aad haddii magaalo kale la aadayo iyo haddii meel kale la tagayo la soo noqo marka go-aankii baan qaadanay isla markii haddana raggaa waxay soo jeediyeen berita subaxii aan baxna caawa aan isku soo noqono aan tashanno marka mooryaantiina magaaladay ku jirto oo xabaday ridayaan oo waa qaylinayaan oo kolba dhinacay u didayaan oo dadkii dad deegaanka yaqaana ma ah marka kuwii la jiray oo deegaanka ahaa oo lagu soo daray ayagina wixii bay ku saseenoo nin reebi karo ma leh marka nin walbaba wuxuu boobo iyo wuxuu qaatuu raadinaa